سؤالهن إنه بلعبان إن أيديكم مهتم برنامج كأنه عدالة والحربات هاي مسكح هذا وفوق كتير مال لكن شغلي سعادي وهالكل يبدأ ما يرنمو أيين كل حساب تبنا مير وراي قشنا ونكتب بقلنا أنا أيديكم بقى واحد على ما يركين ويديو سؤال دول كتصابسا دول هو دول كفراء دول هو بدن إيه بربرة لو كيسنا ودم بيه وحلا وبتشوكته يا دول هو بدن يجون إسنايلس يفرع بدن له قف إيه بربرة يعني كبحين إيه دجنا وحلا جاي عباين أنا والله هين هديه كي عشان إيه بدن فقاط واحد ما يركي ويدين لا محيط وبتشوكته وبايام بتين دتك دجنا مجالده دولت عبسي إلهي ما نقبل بنان اللي نقبله سحورة حلالة سؤال شهادي ودي أنا غالكها جوابتي نقولنا يسوي استدفاع لكن واحد نقولنا حقيقة لم تكن سلاسة بسم الله الرحمن الرحيم مقعي والفارح يسفع الشرطة لنا waxaan weydiinayaa maayarka mashaariicda dawladda hoose ay bixiso iyo shaqaalaynta dawladda hoose dad shakhsiyad gaar ah ayay siisay maxay ugu sinaan waayeen bulshada reer berberi magacaygu waa Sahran Nuur Xasan waxaan weydiinayaa gudoomiyaha golaha deegaanka baryahan dambe xamxam ayaa la isla dhex marayaa oo la leeyahay wakaaladii biyaha waxa ku dhex jira gudoomiyaha golaha deegaanka ma waxa dhex galay golihii deegaanka biyihii noqday mise wakaalada biyaha ilaa wasiir leh ayaa golaha deegaanka guud ka qabsaday Cabdiqani Ciise la yiraahdo su'aashan maayirku inay 22 xildhibaan bad ku joogtaan golaha deegaanka xildhibaanada ugu badan markaad noo timaadeen maydun lahayn wax hantiya marka adiga iyo dhowr fara ku tirisa laga tabiyo waxaad caawan noogu dhaarataa maayar wixii hanti aad lahayd hore waxa ku soo biyay dakhligeedu xaq ka soo galay annagoo intaas oo dhan ku maqlayna maayar sidaan ka warqabno xafiis waxaad ku leedahay dawladda hoose xafiiskaagaasi inta badan ma timaadid xafiiska markaa ma waxaad noo sheegi kartaa ma xafiis kale ayaad meel kale ku leedahay oo aad bulshada ugu qabataa waayo maalin kasta ma soo xaadirsay xafiisyada dawladda hoose aad ku leedahay sidaa darteed bal noo kala caddee inaad xafiis kale dawladda hoose ood meel kale ku leedahay yeenka magacaygu waa Shacaab Jaac Faarax maayirka waxaan weydiinayaa waqtiyada ka mid ah wuxuu qori la galay warshada leerka berbera waxa ku kalifay inuu sharciga soo mari karaya qori uu la galo warshada leerka berbera iyadoo qalliino ay soconayaan oo ummadii loo shaqaynayo ayaan weydiinayaa maayirka waxaan weydiinayaa dadka danyarta ah ee berbera ku nool inaad dhulkooda taqaadid oo dad kale u caasuurtid dadka dhulbedeltii aad siisayna dhul aan ku munaasib ahayn oo bedeltada biyo guuraya inta la halmaanta inaad dhulbedelka siisid maxaa maayirtu miyuu u badheedhay mise uu khaldamay su'aashaada weydiin mudana maayir waxaan ku weydiin lahaa dawladda hoose waxay leedahay agaasimayaal fara badan oo hagu ah maxaa u dilay gabadh inay agaasimo noqoto dadka u shaqaysaana musli waxay badan yihiin dumarka marka maxaa u dilay inaan hal gabadh ama ay dumarku ka muuqdaan dawladda hoose ashayda markaan u soo noqdo waxa weeye maadaama bilicda lagu jiro waxa jirta waddo weyn oo qaranka ka gashay lacag badan oo hormarta xaafadda Hindiya Laynka isla markaana xildhibaan la yiraahdo xildhibaanada ugu shilis yahay ayaa wuxuu waddadii Finland horteeda ka dhistay gurigii uu ku jiray buu guri kale ku hordaray marka maayirhan maadaama waddadii uu xilay ninkaasi maayirhan ma isleedihiin arika guriga ha laga baabiyo su'aashan doonayna maayirka weydiiyo waxa weeye oo aanan ku qancin maayar dawladda hoose waxay leedahay wax loo yaqaano procurement policy ama marka dawladda hoose wax soo iibsanayso nidaam iyo policy bay leedahay policygaas oo ah wax kasta oo la soo iibinayo in ummadda loo bandhigo marka su'aasheedu waxa weeye wax kasta oo la soo iibinayo maxaa siiyey tawfiiq ee u diiday shirkadaha kale ee soo xareysta maadaa sheer ku leh mise wax kala jira